kulan ay isugu yimaadeen suxufiyiinta qurba joogga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya isla markaana ay ku dooranayeen guddoon cusub maadaama mas'uuliyiintii ururkii hore ee qurba joogga Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ay wadanka Kenya ka dhoofeen ayaa kulankaasi waxa ka soo qayb galay culimaadudiin waxgarad aqoon-yahano iyo waliba suxufiyiin aad u tiro badan kuwaas oo fadhigoodu yahay magaalada Nairobi. kulanka oo laga soo jeediyay hadallo kooban oo dhiirigelina ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahayd oo barbar socotay tartan ay ku loolamayeen Cabdiqafaar Axmed Shire iyo Aadan Kismaayo oo labaduba ka tirsan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya ayaa waxaa markii dambe ay guushu raacday kadib markii codayn si xalaal ah loo sameeyay Cabdiqafaar Axmed Shire oo kamid ah suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi waxaana loo doortay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta dibad joogga ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxaa sidoo kale munaasabadu markii ay soo gabagabowday u hambaliyay gudoomiyaha la doortay murashaxii laga guuleystay ee Aadan Kismaayo waxaana munaasabada hadalla ka jeediyay suxufiyiin rugcadayaal iyo sidoo kale marti sharaf kale oo goobta ka soo qayb gashay oo ay kamid ahaayeen culimaadudiin iyo suxufiyiin. ma aha muhiimadu inuu qof laba qof guuleysto ma aha in laga guuleysto inaad guuleysato guushana laba qof kama wada quslisiiso libintu mid un bay raacdaa mana ahan in aan dhahayo waa laga guuleystay wax doorasho oo dhacday ma jirto ma dhahayo laakiin saaxiibkay waan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan uu dhinacayga u soo istaagay uu loolankan u wada galnay sidoo kale waxaan idin caddeeyaa inaan diyaar u ahay inaan Cabdiqafaar la shaqeeyo oo aan markasta dhinaciisa taagnaado. شرف وين أهيد حقيقة مركي اللي إذا أذنك اسمها كلها ترتمي وانا because ويجا popular thing ويجا عن سنة لكن وحن لينا يا سومالي واحد ترى ذا قريب لمن كمود قصدي سي دور الشدع أنا لي أسيء قوة ترتم لبدي أنا بين شرف نوضة أهيد سي عن معركتي وذا شقين كرنا مستقبل كاي ودده وحارته waxaan ka balan qaaday awriyaasha intii oo codaysay oo konton iyo dhowr lagu sheegay intii saaxiibkii oo codaysay inaan isku si siman ula shaqeyn doono kii sheegay inuu igu codeeyay kii aan ii sheeginba oo aan ula jeedo haddii aan hada guuleystaysan isdhihin 20kii maadaama ninka Cabdiqafaar ka soo jeeday oo codaysayna bari ka maanday fursad haday soo baxaan xabadka ama gacanta la idin gashaa waa ii siintihiin ha kala reebin islaamnimadaada iyo professionkaagu ma kala hadhaan anoo hadda businessman baan ahay haddaan businesskayga ku ekaysto islaamnimadii ka saaro businesska waxa weeye waa khasaaraya ma kala hadhaan marka qofka professionkiisa iyo islaamnimadiisu ma kala hadhi karaan taasi waxay keenaysaa kow waxa uu soo sheegay inay tahay wax run ah marka ugu horeysa yaa ayuha alladina aamanu taqullaha wa kunu ma'a as-saadiqiin run inaad sheegtaan raba wadan been sheegin adoo cid ugu danaynaya labo waxa la doonayaa wax walba oo maqasho inaad sheegin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idin kaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ii dhagaysateen oo qaarkiin gaar ahaan dadka madaxda ah ay u maqleen hadalkii ku saabsanaa inaan joojino khilaafka oo Soomaalinimo iyo wanaag la wada helo aad baan idin kaga mahad celinayaa tan labaad waxaan mar walba idin sheegayaa waa rabaa inaan kula dardaarmo arrintan nuxnuxdan iyo qabyaaladda oo dadka qaar leeyahay qabiil baa jira waxaan rabaa inaan idin sheego qabiil hadduu wax tarayo xamaraan joogi lahayn Soomaaliyay wanaag waxaad ku weydaan waa lib meelaysaan midda kale mihnidan saxaafadda waxaan idinka codsanayaa qabyaaladda ka dheer inta aad ka dheerayn kartaan qabyaaladda ka dheereeya waana mahadsantihiin gudoomiyaha waxaan jeclahay inaan marka hore u hambaliyeeyo sidoo kalena Aadan Kismaayo ayaan asagan u hambaliyeynayaa labada nin runtii anaa ag fadhiyay كل مد با ول بدنا لكن مش هيك بركة waxaan leeyahay labadiina waa guuleysatay maxaa yeelay saxafiyiin ayaa idin codeeyay qaar midkiin habato laakiin mas'uuliyadda dambe sheegi doonta waxa laga rabaa Cabdiqafaar waa la yaabay yani waxa incredible ah wadankayga wax dhib kama jirin Cabdifataaxna waxaan leeyahay Kismaayana niyo hambalyo wanaagsan waxaan anigu aaminsanahay inaad Broadway basidaa adoo 86 dhashay hadaad doorasho ninkii labaad noqotay guul weyn baad gaartay labadii musharax ee sida cad ee muuqata ee xalaasha ah ee aad ugu codeyseen ee runtiina hadda kaalintaas uu ku soo baxay mid kamid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed Cabdiqafaar Shire waan ugu hambalyeynaya laakiin waxa xasuusinayaa saaxiibkay
in inta dooratay inta aan dooran iyo in kaloo imaan doonto halkan kana imaan doonto qaybo ka mid ah Soomaaliya oo dhibaatooyin weli ay ka sii socdaan in isaga ay soo u imaan doonaan isla markaana uu wakiil ka yahay inta halkan joogtana uu wakiil ka yahay si cadaalad oo muuqato oo walaalnimo iyo islaamnimo ku dheehan una u maareen doono khibradii uu markii hore isugu soo taagay jagadan banaan ee aan shaacinana inuu kaalinteedii iyo aqoonteeda uu leeyahay waa ugu hambaleynayaa suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ayaan lahayn muddooyinkii ugu dambeeyay urur isku xidha kaas oo u qareema isla markaasna xuquuqdooda uga soo dhiciya hay'adaha iyo wadamada ay arintoodu khusayso waxaana waxyaabaha sida weyn ay Soomaalidu suxufiyiinta ah ee Kenya ku sugan ay ugu baahan yihiin kamid ah sharciyo ay ku shaqeeyaan Maxamed Axmed Ilkaase telefishinka qaranka Nairobi